madaxweynaha Puntland ayaa amar waxa uu ku bixiyay cid kasta oo joogta maamulkaasi Puntland oo aragtidiisa ka soo horjeeda iyo guud ahaanba lid ku ah sharciga maamulkaasi guryaha loo dhaco habeen madow sidoo kale waxa uu amar ku bixiyay in cid kasta oo duulaan ku qaada Puntland ay ka jawaabto si gaar ah ciidamo ayaana loo tababaray arintaas oo si degdeg ah uga howlgelaya taliyihii kuliyadda tababarka ee ciidanka booliiska ee Carmo waxa uu diiday in uu xil wareejin sameeyo ugu dambeena waxa uu iska dhiibay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool wararkaasi oo idil ayaan halkan idinku soo gudbi doonaa duleedka magaalada Beled Xaabo oo uu ka socdo abaabulkii ugu xoogana oo ay wadaan ciidamada daraawiishta ee dowlad goboleedkaasi Jubbaland qodobadaas iyo kuwa kale iyo mucaaradka Soomaaliya oo ay ku jiraan Puntland iyo Jubbaland oo shir xasaasi ah oo waliba degdeg ah la tilmaamay inay la qaateen wakiilada beesha caalamka ayaa guud ahaan halkan idinku falanqeyn doona saaxiibayaal ee soo dhawaada haddii ay markaa kugu horeysay ee aadna soo booqato waxaan ka codsanayaa inaad subscribe dhahato channelkeenan qaybta hoose ee faaladana aragtidiina nagula wadaagtaan sidoo kale saaxiibadina la sii wadaagtaan muuqaalkan si uu meel dheer u gaaro halkan waa nabad aniguna waxaan Cumar Guux mar kale soo dhawaada saaxiibayaal aynu ku bilowno sida badankiin aad ka warqabtaan xiisad siyaasadeed iyo mid amni ayaa ka dhex taagan maamulka Puntland marka si loo fiiriyo ciidamada uu hogaamiyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo waliba si gaar ah u taabacsan waxa ay bilaabeen in ay ka howlgalaan maleeshiyad la sheegay in maalmihii la soo dhaafay ay siyaabooyin kala duwan ula hadlayeen warbaahinta iyaga oo qaarkood sheegay inay ka mid yihiin ciidanka maamulka Puntland waliba kuwii ka soo dagaalamay buuraleyda Calmiskaad ee gobolka Bari furiimahana ka yimid ciidankaas qaybtood waxa la sheegay inay ka mid yihiin isla ciidanka Puntland sida xogta lagu helay waxaana sidoo kale la tilmaamay in ciidan kale oo dhinaca Asad Diyaano oo ah taliyaha booliiska Soomaaliya iyagana ay go'aan culus qaateen oo dhawaan warbaahinta si toos ah ay ula hadleen rag saraakiil ah oo si gaar ah u taageersan Asad Diyaano iyo dhinaca dawladda federaalka Soomaaliya ayaana hogaaminaya qaybtood waxa la tilmaamay isla gobolka Sanaag inay ku sugan yihiin oo maalmihii la soo dhaafay ay ka taagnaayeen isdiidooyin amni oo ciidamadan u dhaxaysa ciidankan waxaa badankood la sheegay inay ka mid ahaayeen kuwii ka soo dagaalamay buuraleyda Calmiskaad ee gobolka Bari maalmihii la soo dhaafayna ay dib uga soo baxeen furimaha dagaalka iyaga oo gudaha u soo galay magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan gobolkaasi Sanaag ee dowlad goboleedka Puntland madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu tagay halka lagu magacaabo Baran iyo magaalooyin kale oo ay maanta ugu dambeysay Carmo tababar ciidan ayuu soo xiray oo ciidan booliiska gaarka ah oo waliba u qaab eg kuwa haramcad ayaana la tilmaamay in tababarkan loo soo xiray sida muuqaalka waxa uu muujinayaa ciidan aad u hubeysan qalabaysan sidoo kalena wata dhar ka duwan kan booliiska Soomaaliya ee waliba gaarka ay haramcadka loo yaqaano iyo kan booliiska caadiga ah iyadoo sidoo kalena dharkan la tilmaamay in uu ku cusub yahay deegaanada Puntland looguna talagalay ciidamadan inay fuliyaan howlgallada qorsheysan ee gaarka ah waxa la tilmaamay in dawladaha garabka siiya dawladda federaalka Soomaaliya mid kamid ah tababar ay siiyeen ciidamadan iyaga oo ka howlgalaya meelo badan oo ka tirsan maamulkaasi Puntland amar degdeg ah ayuu durba ku siiyay halkii tababarka loogu soo xiriyay madaxweyne Dani waxa uu tilmaamay inay jiraan shakhsiyaad ka qayb qaadanaya kala furfurka iyo kala qoqobka deegaanada Puntland iyo sidoo kale dhinaca ammaanka iyagana qalalaasi amni ay ka sameeyaan iyo fowdo waxa uu ku tilmaamay ciidan u ekayaal oo maleeshiyad uu la jeedana maalmihii la soo dhaafay ay bilaabeen in ay meel fagaar ah inta ay soo istaagaan sheegtaan ciidanka maamulka Puntland cidna aanan laga yeeli doonin in ciidanka Puntland ay sumcad xumayso cid kasta oo siyaasi ah oo isagaba uu ku jiro hadii sharciga uu ku xadgudbo la qabto lalana dagaalamo waa sida uu sheegay qayb kamid ah ama noqol kamid ah khudbadii uu jeediyay ayaa sidan u dhignayd waxaan idin farayaa waxa ilaalinaysaan waa inay sharciga noqoto ee sareynta sharciga qawaaniinta Puntland iyo dawladnimada ay ilaalisaan qof siyaasi ah aniga Allah ku daray dabac gaar ah waxba ha ilaalinina waxaad ilaalinaysaan waa dawladnimada taasaan naga badan taasaan wada qabsanayna taasaan waxaan rabnaa inay ubadkeena midka jilicsan haweenkeena nugul waa yeelkeena kuwa madluumiinta ee dhibaatada haysata iyo kuwa dhaqan ee ganacsiga haysta iyo kuwa xilalka dawladda haya inay sharci u sinaadaan wada dooneen waxaan rajaynaynaa insha Allah sharcigaas inuu wada deeqo
waxa kaliya ugu horeeya ugu deeqi karaana waxa weeye inaan helno ciidan tababaran oo hubeysan waxa caado noqotay in maalmahan ciidamo dad sheeganaya oo ciidamo wakiyaala inay meelaha qaybta ka qaylinayaan arrintaas ma aha wax ku jira qabta waxaan doonaynaa arrintaas in laga waajoobo ciidanka hadduu shalay ahaan jira beela meel joogay maanta ciidamada dawladdu way isbedeleen tababaray ku wada jiraan noloshooda kor loo qaadaya awoodooda kor loo qaadaya nin kastoo muwaadina oo danaynaya inuu ciidanka ka mid noqdo albaabada dawladdu way u furan tahay inay ku soo biiraan oo cududooda ay meel isugu geeyaan baan ka rajaynaynaa insha allah waxaad ogaataan ismadoobeyn iyo meelo la istaago sharciga laguma baadi karo mana aqbalayno haddii ilaahay warku inuu cadiyaha la rabaa dowladda puntland dadkeeda way ku filan tahay dowladnimadeennana way difaacaysaa ama meel dheer gacanta ka soo rido ama meel dhow gacanta ka soo rido adig ku taalo waxaan inagu boorinayaa dalkan inaad difaacdaan waa madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni dhinaca kale isla maamulka Puntland taliyihii kulliyadda ee Carmo General ninka lagu magacaabo Muuse Xasaasi ayaa la tilmaamay in uu galay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool kadib markii uu guud ahaanba diiday inuu xilka wareejiyo waa taliyihii ugu sareeyay kulliyadda tababarka ee degmada Carmo waxaana la sheegayaa in sababta ugu weyn ay tahay in madaxweyne Deni xilka qaadistaas uu ku sameeyay ahayd mid uu ku qanacsanaa laakiin taa bedelkeed isla kulliyadii uu isagu waa ka ahaa taliyaha sidoo kalena macallin ka ahaa ayaa ugu dambeyn maanta tababar loogu soo xiray ciidan booliiska gaarka ah ee Puntland kuwaas oo amar degdeg ah la siiyay waxaana Laascaanood la tilmaamay inay ku soo dhaweeyeen rag saaxiibadiisa ah oo markaasi ku soo dhaweeyay ugu dambeynna la sheegay in guud ahaanba xilkaasi inuu wareejiyo ay ka xigto inuu xilkiisa sii haysto ama xitaa uu dagaal la galo maamulka Puntland si gaar ah madaxweyne Deni oo xilka qaadistan ku sameeyay arintan ayaa cirka isku sii shareertay xaaladan waxay u muuqataa in Puntland ay qaadanayso gaar ahaan madaxweyne Deni uu qaadanayo go'aan adag oo ah in ciidamada noocyada kala duwan isugu jira ee meel kasta laga kala keenay xilligan dagaal toos ah uu ku wajaho hadalkiisa maanta waxaa ka dhex muuqday inuu diyaar u yahay in weerar lagu qaado ciidamadaas maamulkaasi Puntland sheegay inay ka go'een ee dhinaca dawladda federaalka Soomaaliya ku soo biiray ciidamadan qaybo kala duwan ay isugu jiraan dadka qaar waxa ay sheegayaan ciidamada booliiska gaarka ah hadda kuwa lagu magacaabay inay yihiin ciidan hore Puntland ugu tirsanaa magacna watay laakiin magacii laga bedelay oo hadda magaca booliiska gaarka ah ee Puntland la siiyay intaas markaan kaga talaabno dhinaca Puntland iyo wararka kale ee jira duleedka magaalada Beled Xaabo ee gobolka Gedo abaabul aad u xoogan ayaa ka socda oo ay wadaan saraakiisha ugu sarsareysa ee maamulka Jubbaland Beled Xaabo oo ah meel ay ku dagaalameen dhinacyada waa Jubbaland iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaa hadda u muuqata mar kale barloolan oo ay isugu imaan doonaan ciidamadan labada dhinac ka kala socda ee Jubbaland iyo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya waxa muuqata in saacadihii la soo dhaafay ciidan aad u tiro badan qaarkood ay kula hadleen halkaas saraakiil sarsare oo ciidamada maamulkaasi Jubbaland ka tirsan ujeedka ugu weyn waxa lagu tilmaamay inay tahay in Jubbaland mar kale ay dib u doonayso inay u soo ceshato ammaanka iyo xukunka guud ee degmada Beled Xaabo ee gobolka Gedo oo awood looga saaray bilihii la soo dhaafay waxaana muuqata in Jubbaland xilligan u diyaar garoobayso duulaan ka dhan ah dawladda federaalka ah ee Soomaaliya kaliya ma ahan Beled Xaabo meelaha ay abaabulka ka socdaan waxa kamid ah doolo duleedkeeda oo ciidankii ugu badnaa dawladda federaalka Soomaaliya ay ku daabulayso kuwaas oo la warinayo in ujeedka ugu weyn uu yahay in laga qayb qaato duulaanada tooska ah ee ay dawladdu ku qaadayso meelo kamid ah maamulkaasi Jubbaland gaar ahaan gobolka Gedo isla wararka Gedo waxaa subaxnimadii hore ee saaka Allah u naxariistay lagu dilay duleedka magaaladaasi wiil magaciisa lagu sheegay Cabdi Suubiye cilmi kana mid ahaa ciidamada daraawiishta ee dawlad goboleedka Jubbaland askarigan waxaa la tilmaamay in guutada saddexaad ee daraawiishta maamulkaasi uu ka tirsanaa laguna dilay inta u dhaxaysa xira ciidan oo ku taala duleedka magaalada iyo gudaha degmada Ceelwaaq iyadoona kooxo hubeysan oo dilkaasi geystay la tilmaamay in markii dambe ay goobta ka baxsadeen ciidan ka tirsan isla kuwa daraawiishta Jubbaland ayaa goobta gaaray iyagoo baaritaano kooban sameeyay laakiin wax natiijo ah aysan ka keenin baaritaanadaas kaliya ma ahan askarigan kii ugu horeeyay halkaas lagu dilay askar iyo saraakiil kale ayaa nafta loogu dhaafiyay duleedka magaaladaasi Ceelwaaq
ee gobolka Gedo qaarkood iyaga ayaa saraakiisha ama askartu isdilay halka kuwa kalena kooxda al-shabaab ay dilkaasi ka fuliyeen duleedka magaalada iyo gudaha magaalada intaba wararkaasi oo idil saaxiibayaal wixii ka soo kordha barnaamijyadeena wararkeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii taa markaa kugu horeysay aad soo booqatana channelkeena subscribe saaro qaybta hoose ee faaladana aragtidiina nagula wadaaga sidoo kalena saaxiibadeena la sii wadaaga muuqaalkan